xafiiska TV-ga qaranka ee magaalada Laascaanood ayaa maanta booqday kastamka bari ee magaalada Laascaanood halkaas oo ay ku guda jireen hawl maalmeedkoodii caadiga ahaa waxaana halkaas kula kulanay Maxamed Cabdi Nuur oo ah sarkaal ka tirsan laanta kastamka Laascaanood oo ka warbixinaya habka ay u shaqeeyaan kastamka bariga magaalada Laascaanood taliyaha laanta turbataariyada ee gobolka Sool oo isaguna nooga waramay oo sheegay in ay ka shaqeeyaan 3 goobood oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood hadaladiisina waxa kamid ah sida tan booliska gobolka Sool ila taliyaha qaybta ila barasabka wax isku duban baa gobolka waxa ka socotay cashuurta kaliya ka socotay kastamka imika ilaa iyo haddana iyadii baa socotaa waan fiirinaynaa ilaa iyo cashuuraha bariga sanadka cusub gaaleedna bisha koodeeda sanadka cusub inuu soo socdaa inaadeen way jiraan wadadu way farbadan tahay ilaa iyo ergaabo xadkaas ilaa 5,000 oo wado lagu qiyaasaa wadooyinka faraha badan ee macnaha ee soo galaan ama dhaafo magaalada Jibril Xasan oo taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Sool isaguna ku sugnaa barta kantaroolka ee bariga magaalada Laascaanood ayaa warbixin kooban ka siiyay TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ugana waramay hawl maalmeedkooda taasoo ka codsaday bulshada isticmaasha kastamka waxaana noo sheegay in magaalada Laascaanood ay ka shaqeeyaan immigration-ku iyo guud ahaan gobolka Sool kastamka bariga magaalada Laascaanood ayaa xilligan ay ka socotaa hawl ballaaran oo ku aadan cashuur ururinta waxaana mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Laascaanood ugu baaqeen bulshada ka ganacsata gaadiidka maciishada inay cashuurta bixiyaan